magaalada barakeysan ee Makka waxaa ku noolaan jirtay haweeney ay dadka oo dhan wada qadariyaan. Waxay ahayd haweeney hodan ah, aqli badan, akhlaaq wanaagsan, dadka masaakiintana caawisa. Magaceeda wuxuu ahaa Khadiija bint Khuwaylid. Qurayshna waxay ugu yeeri jireen Ad-Daahira oo macnaheedu yahay haweeneydii daahirka ahayd. Khadiija waxay ka dhalatay qoys sharaf leh, aabaheedna wuxuu ahaa ganacsade caan ah. Markii waalidkeed geeriyoodeen, Khadiija waxay la wareegtay ganacsigii reerka. Inkastoo xilligaas dumarka aan si weyn loo qadarin jirin, haddana Khadiija waxay noqotay ganacsatada ugu waaweyn ee Makka. Halka qaafilooyinkeeda ganacsiga ay gaari jireen Syria iyo waliba Yemen. Maalin maalmaha ka mid ah ayay maqashay nin dhalinyaro ah oo loognanaysi jiray Al-Amiin, ninkii lagu kalsoonaa. ninkaas wuxuu ahaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka hor nabinimadiisa. Khadiija waxay maqashay runnimadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan, markaas ayay ka codsatay inuu safar ganacsi u aado dhulka Shaam. Safarkii markuu ka soo noqday, faa'iidooyin badan ayuu u soo hooyay, laakiin waxaa Khadiija aad uga yaabiyay ma ahayn lacagta oo keliya, waxay ahayd daacadnimadiisa iyo dabeecadiisa wanaagsan. Markaas ayuu qalbigeedu jeclaaday, ugu dambeynna way isguursadeen. Guurkoodu wuxuu noqday mid jacayl, ixtiraam iyo naxariis ku dhisan. Khadiija waxay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam u dhashay caruurtiisa badankood, waxaana gurigooda ka jiray deganaan iyo farxad aan xad lahayn. Sanado kadib, markuu nabigu bilaabay inuu ku cibaadaysto godka Xiraa, Khadiija mar walba way taageeri jirtay. habeenkii ugu weynaa markuu waxaygii ugu horeeyay helay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam isagoo gariiraya ayuu guriga ku soo noqday oo uu yiri idada. Dad badan way cabsan lahaayeen, laakiin Khadiija ma aysan argagaxin. Waxay dejisay qalbigiisa, waxayna tiri Alle ku duleyn maayo, waxaad caawisaa masaakiinta, qaraabada ayaad xiriirisaa, dadka dhibaataysanna waad garab istaagtaa. Sidaas ayay ku noqotay qofkii ugu horeeyay ee Islaamka rumeeya. Markii gaaladii Quraysh bilaabeen dhibaateynta muslimiinta, Khadiija waxay ku bixisay maalkeedii oo dhan difaaca Islaamka. Waxay quudisay masaakiin badan, waxay xureysay adoomo badan, waxayna dhibaatada la qaybsatay muslimiinta. Xitaa markii Quraysh go'doomiyeen reerkii nabiga 3 sano, Khadiija kama tegin nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxayna la qaybsatay gaajo iyo silac ilaa hantideedii oo dhan ay ka dhamaatay. dhibaatadii badnayd waxay daciifisay Khadiija caafimaadkeeda. Ugu dambeynna sanadkii murugada loo bixiyay ee caamul xuzni ayay Khadiija radiyallahu anha geeriyootay. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aad ayuu ugu murugooday geerideeda, waayo qofkii ugu horeeyay ee rumaysay, garab istaagtay, qalbigiisana dejiyay ayay ahayd. xitaa sanado badan kadib, nabigu sallallahu alayhi wasallam mar walba wuu xusi jiray wanaageeda, wuxuuna oran jiray waxay rumaysay markii dadku ay beeniyeen. sidaas ayay Khadiija bint Khuwaylid ku noqotay taariikhda Islaamka hooyadii ugu horeysay ee muuminiinta iyo astaan u taagan iimaan, samir iyo jacayl dhab ah.